السلام عليكم magacaygu waa Mahad Xigaal waxaan ahay sawir qaade iyo film sameeye waxaan ku shaqeynay muddo 6 sano ah sawir qaadistu waxay ka soo raacday waqti carruurnimo waxaan xasuustaa ku ciyaari jiray toy cameraska ay ku sawiran yihiin FIFA underkooda Masjid Al-Aqsa iyo Makka iyo meelaha maaragtay holy placeska marka first camera waxaan xasuustaa waxaan iibsaday 2019 anoo markaa ku bilaabay portrait photographer abaan xasuustaa shaqooyinka ugu mudan aan ka shaqeeyay aan soron karay dadku way kugu majartaan ama kugu barteen wax qabadkaaga heerku gaarsiisan yahay waxa weeyaan 2024 electionskii ka dhacay Somaliland Hargeysa capital city-ga inaan ka sameeyo documentation visual documentation oo maalin kasta campaign dhacayo ilaa maalintii doorashada ka sameeyay visuals marka maalin kasta aan kacay baan ugu badinayaa inuu yahay wax qabadkayga ugu fiicnaa xagga documentary photography inaan ka sameeyay oo kaas aha dabcan shay kasta la qabanayo nolosha challenges ku leeyahay nooc kasta ha ahaadee shakhsi ahaantayda challenge-ka ugu badnaa isoo wajahay waa aniga sawir qaade ah oo specifically sawir qaade ah baan ayaan fiilka filmmaking galay and then miisaanka wax qabadka iyo maaragtay wax soo saarka iyo ayaa baa iga lumay oo waxay noqotay inaan hal sano ka maqnaaday sawir qaadistiyo aan lose gareeyay marka dib waxaan kaga gudbay aan kaga survive gareeyay inaan si fiican isugu dheelitiray mid kasta potentialkiisa iyo timekiisa aan si fiican isugu miisaamay aan ilaa haddana wado alxamdulillah talo aan jeclaan lahaa markii aan yaraa ama aan soo bilaabay career-ka inaan helo ama haysto wax ay ahaan lahayd inaan akhris badan sameeyo oo mawaadiicda kala duwan ee meediyaha ama waxyaabaha kala general interest-ka inaan wax badan ka fahamsanayo ama aan ogaal badan ka haysto waan jeclaan lahaa inaan talo ahaan u heli lahaa waxaan talo ahaan siin lahaa qof kastoo xiiseynaya waqti xaadir inuu soo galo sawir qaadista ama majaalka meediyaha in uu faham badan ka haysto akhlaaqiyaadka iyo wacyigiisuna uu yahay mid u diyaarsan inuu maaragtay bini aadam kale ama shay kale wax ka gudbin karayo mas'uuliyadiisa uu qaadi karayo baan kula talin lahaa inuu u diyaarsan yahay dhanka technical-kana inuu si fiican uu maaragtay tababar fiican ka sameeyo oo intuusan stageska imanayaan wax badan soo taabicin inuu tababar fiican ka qaato oo wax soo saarku soo saari doono iyo qalabku isticmaali doono waxaan jeclaan lahaa in dhalinyarta ama qof kastoo majaalkan ku jira uu ka ordayntu ka ordi karaya ama uu iska joojiyo haddii uu ku jiro waxa weeyaan inuu ideaska kale dadka ay already sameeyeen inuusan siday tahay u soo qaadanin laakiinse inspiration ka qaadan karayo laakiin uusan copy ku samaynin marka uu aamini karayo qofku inuu isagu wax soo saar cusub iyo xadaarad u samayn karayo oo wuxuu isagu leeyahay unique uu samaysan karayo inuu taas aamino oo maxay ahayd laga korabaan ayaa soo jeedin lahaa